abkan cusub ee airdropka bilaashka ku siinaysa aragtidba totalkan haysta waa 12773.63 waxaan ku jiraa muddo yar weeye airdropkan waa airdrop dhawaan soo baxaya oo faa'iidadiisu aad u badan tahay marka la barbardhigo abka sidiisoo kale ah ee hore u soo baxay wuxuu leeyahay potential ama faa'iido aad u fiican oo aad lacag badan kaga samayn kartid halkan sa aragtid garaafka in muddo abaadir xoogaa waa kusoo jiray oo waqti kooban baa ku jiray saad aragtay halkan ka aragtid waxaan ka joogaa Soomaaliyan joogaa oo aniga tusayo inkastaan u bogayn sidoo maapka iyo waxa uu sameeyay sidoo kale rewardska haddaan tago oo aan ku siidso proofka saad ka aragtid rewardsku si gradual ah oo caadi ah buu marba u korayaa oo halka daarta daily dan ka dhigo monthly billaha dan ka dhigo graafka deer daartid dan ka dhigo yearly saartid ba 24 kaliya ku jiray oo qayb kaga jiraan ku wada jirin sidoo kale faa'iidooyinka leeyahay waxa kamid ah haddii aad ku dhufto referralska oo kale waad gali kartaa laakiin hadda ku dhufto halkan lucky draw oo kale maalin walba wuxuu ku siinayaa inaad ku dhufto halkan spin waad spin garaysid tickets buu bixinayaa oo tickets buu siinayaa halkan hadda ku dhufto oo kale kaysok oo kale sida artaadir waxa ku cusub waxa la dhaho kaysar checker node sale live oo dhawaan soo bixi doona oo muuqaal baan soo diyaarin doona sida aad isugu xir lahayd nodeka iyo habka aad ula bixi lahayd missionska hadda ku dhufto oo kale sida artid maalinta koowaad oo kale hadda si toos ugu xirantay 10 points baad helaysaa 20 points ilaa 7 cishaad 120 points ka helaysid waa qaab streak ah waana xiriirsan tahay maalinta koowaad hadda ku xirantay ilaa maalinta 7 points kan bilaashka waad ka helaysaa ku siinaya hadda kalimada ku dhufto oo kale waad kalim galaysanaysaa hadii available wax ku yihiin sidoo kale halkan wuxuu ku siinayaa missions oo ku furaya hadda twitterka ku xidhido oo kale wuxuu siinayaa content points discordka hadda ku xidho content points hadda share garaysid oo aad twitter ahdid postska isagan wuxuu siinayaa content points hal saaxiibada ku soo xidhido oo kale content points hadii aad dhameysid tamban spin participations oo kale hadda aad wiilkeera wareejid oo kale hadii aad gaadhay 100,000 oo points wuxuu ku siinayaa 200 points marka waa hab aad kor ugu qaadi kartid faa'iidada ka helaysid abkan oo abkan ku tistoona asaasiga diiwaan gelin lahayd waxa soo dhan qaybta hoose description link waa in dhigi doonaa oo aad ka soo geli doontaan waalidka marka verify garaysid kaysar meme oo kale tiktok video hadda ka soo diyaarsid wuxuu siinayaa 100 points marka habkaasina waa habkaad faa'iidooyin badan way sii helaysid haddaan dashboardka dib ugu soo laabto dashboardka waa kan wax kale ka sii sheegnaa ma jirto waxa u baahan tahay inaad waalidka halkan verify garaysid oo muuqaal gaar ah ka soo diyaarin doona anigu waa connected waan ku xidhay kasoo hadda verification iga rabo aan verify garayo si waxaygaan la bixi karo oo aan airdropkii u heli karo markaan isla aragnay abkan iyo si uu shaqeynayo waxa muhiim waxa weeye inaad aragtid muxuu yahay abkani iyo aad uga shaqeysan kartid faa'iidada uga heli kartid abka waxaa la kaysar hadaynu nimaadna halkan homepage-kiisa haddii aad halkan la soo gaadhay fadlan muuqaalka like channelkana subscribe dhacdo gambalaalkan furanaya inuu ku sii socono muuqaalkan saa artid wuxuu kugu siinayaa abaalmarin your compute your currency mar walba aad power siiso channelka computerkaaga CPU-giisa RAM-kiisa hard disk-kiga GPU-giisa waxaasoo dhan waa maxay waa compute waa power mar walba powerka la sii wadaagtay isaga kambaniyada kale ku sii iibinaya kadibna AI-da ku sii train garanayaan ama ku sii tababarayaan kadibna waxaad ka helaysaa currency mar walba awooddaada bixisid computerka awoodiisa computerkiisa waxaad helaysaa wax loo yaqaan currency oo lacag baad u bedelan kartaa transfer your compute power into real earning u bedel computerkaaga computerka ama qaybta awoodiisa ama xawaarisa isticmaaleen lacag u bedel ku leeyahay marka download zero node waa mid bilaasha check node sale is live waa mid la iibsanayo waa arki doona laakiin waxa muhiim ah kan zero node-ka qaybta description ku dhiga linka ku soo dhufo oo aad iska diiwaan gelin kartaa automatically oo waxba uusan ku weydiinin halka saarti dashboardki waan soo aragnay saad u bilowdid oo kale saddex talaabad u baahan tahay linka qaybta description ee ku soo dhufatid akoon ka samaysatid kadibna aad ku duubtid browserkaaga kaysar node kadibna aad faa'iidada u heshid oo bilowdid inta marka laga yimaado halkan wuxuu ku sharaxayaa sida ugu duubi lahayd waxaana kula dulmari doona waxa kale oo muhiim ah haddaad tahay qof GB mining iyo kale wax ka haysta ama GB awood badan baa guud ahaan ba haysta waxaad ka samayn kartaa faa'iido aad u badan USDC oo halkan waxaad la xiriiraysaa teamkooda GPU-gaagana waad iibinaysaa oo powerka waad iibinaysaa inkastoo kani u baahan yahay electricity aad u badan oo Soomaaliya markii la joogo electricity very expensive tahay wadamada kale ee 0.1 kilowatt yahay ama 0.2 oo kale waa GPU wax laga samayn karaa laakiin hadeer wax ka soo gelaya iyo wax ka baxay GPU ku fiican ka noorka ayar aan ku tusayna ka dubatid dhowr computer oo kala duwan ku tijaabist inahaasa u muhiimsan hadii aad rabtid wax ka sii akhristid waa maxay kaysar oo kale antan ku soo sheego decentralized compute power kaasoo ogolaanaya devices-kaaga in awoodda siiyaan ee ayda lagu train gareeyo marba lagu shaqeeyo ee ku shaqeystana faa'iidad ka helaysa amaan ma yahay devices-kaygu mise waa riski wuxuu ku sheegayaa kale inuu guud ahaan amaan yahay oo si ku sheegayo wax riski ah
aysan kugu soo bandhigeen oo aadan ka heleen baasu gaadhin. Inta marka laga yimaado waxaa muhiim ah inaad ogaatid sidee isaga diiwaangelin karaa oo aan u bilaabi karaa earning. Linka qaybta hoose description ini dhigay. Linka markaa kusoo dhufatid sug aan akoonkayga ka baxo horta halkan oo aan dhaho logout. Kadibna wuxuu keeni doonaa page sidan oo kale ah oo u baahan tahay inaad iska diiwaangelisid. Sign in Kaiser account to continue. waxaad akoonkaaga ku gelisaa saad hore ugu socotay oo kale. Hadda Kaiser meesha way ka saareen inaad emailkaaga isku diiwaangelin kartid. waxaa u baahan tahay inaad isku diiwaangelisid Google-ka. Marka anigu isku diiwaangelin waxaa furneed oo isku diiwaangelinayay emailka iyo password-kaad gelin kartid. laakiin kana ka si fudud oo wax isku integrate gareeyeen Google-kii aad ku geli kartid. Discord haddaad leedahay ama Twitter-ka ku geli kartid. waxaan oranayaa sign in with Google isaga fudud oo markaas ugu dhufatid ba Google-ka ku geli kartid. kadib waxaan dooranay mid kamid ah Google-kii halkan iga furan. kadib waxaan oranayaa continue. marka intaad soo dhamaysid automatically wuxuu ku keeni doonaa page-kii oo dashboard sidan oo kale ah. kadibna waxaa u baahan tahay inaad ku duubto wax loo yaqaano extensions. xaggan haddaad timaadid download extension ku qoran tahay ee dhinaca bidixda hoos falaadha haddaad eegtid. haddaan ku dhufto wuxuu soo furaya Chrome Web Store-kii. kadibna waxaan ku duubi doonaa extension-ka inagoo ku dhufanana halkan. haddii aad isticmaalaysid iPhone oo iOS user tahay qayb Telegram-ka la soo xiriir. anigu iOS ma haysto oo iPhone ma isticmaalo. badanka Android-kan isticmaalaa oo iina fiican. waxaan isku dayay inaan ku caawiyo qaybta Telegram-ka hadda la soo xiriir. waayo get ku dhufo add extension there. haddii aad computer haysatidna mar walba waxa ku fiican computer-ka inaad isticmaashid. computer yar oo iska qoran haddaa haysatid oo aadan isticmaalayn oo kale meel baa la iska dhigaa extensionska lagu duubaa. mar walba wuu ku shaqeynaya. muuqaal gaar ah kasoo diyaarin doonaa. haddii aadan computer haysan server yar baa la kireystaa oo bishii $5 ama $3 wax saas kale kaa baxaya. kaasoo ku ogolaanaya inaad mar walba koronto kaaga bixin, internetna kaaga bixin, wax kalena kaaga bixin. 24 saac shidnaanaya 30 cishaba in yar baad ka bixinaysaa. marka extensionska waxaan oo dhan faa'iido fiican baad ka helaysaa markay soo baxaan. kadib markaa ku duubtay halkan kuu soo geli doonaa qaybta extensionska. hadda waxaan isticmaalay Edge. haddii aad isticmaalaysid Google Chrome ama Brave ama Firefox icon kale ku kala duwan yahay. laakiin iconkaas oo kale xagga sare meel uu ka yaalaa ku dhufo. kadib waxaan ku dhufanaya musbaarka yarka ah si aan ugu bingaraysto xagga sare ayuu soo galay. waa kan ii soo galay. waxaan soo furayaa extension Kaiser anoo ku dhufanaya. waxaad samayn kartaa kan dashboard-ka timaadid oo reload garaysid. kadibna extension markuu soo baxo connecting-kaas oo guraya ilaa aad ku dhufanayso halkan start ku dhufo. kadib marka earning-kii ku tirinaya points waa inuu hadda kor u kacaan oo halkan waxa ku soo bixi doonta mining. halkan waxa kugu soo bixi doonta connecting. laakiin internetka ay xawaarisi ku xidhan tahay markii weyn automatically ku xidha laga yaabo. laakiin connect baa muhiim ah inaad ku dhufatid ama start halkan. kadibna dashboard-ka ku soo laabatid. mar walba waxa laga yaabaa inuu saan kale ku soo baxo new mission oo kale ku dhaho hubi oo kale view-na waa ku dhufan kartaa. dad hubis missionska oo wuxuu keenayaa meesha missionska. kadib waxaa oranaysaa Twitter-ka iyo kuwan ku soo tusayna ku xiriirtid weeye. kale mar walba inaad tiraahdaa saad wax uga heshid. kadib dashboard-ka haddaan kusoo laabano dartoon buu siiyey si bilaasha oo aan mar kale Kaiser soo furo. mar kale waa inaan start ku dhuftaa oo aan hubiyaa xoogaa u daasaas oo kale inta ku xidhmayo. marka kaasina waa saad ugu duuban lahayd appka extensionka oo aad faa'iidada uga shaqaysan lahayd. badankan waxaa fiican computerna isticmaasha. haddaad mobile isticmaalisid taaniskaaga waa bannaan yahay oo muuqaaladii hore oo dhan baan kaga hadlay. waxaad u baahan tahay in la soo degtid appka loo yaqaano Miss Browser. marka la soo degtay extensionka baa raadinaysaa oo ku duubasaa linkiga aad iska diiwaangelin lahayd Kaiserna qaybta hoose description ku yaala. haddaa mobile user tahay ku dhufo. badankan haddaa cilad kaala kulanto oo kale xagga Telegram-ka igala soo xidhiidh. marka ay la soo xidhiidhidna xoogaa waa inaad patient ahaataa oo ii dulqaadataa oo badanka mashquulkayga badan. waxaa laga yaabaa in hore kugu soo jawaabi waayo. dadka ila soo xidhiidh laftirkoodu waa badan yihiin. qaarna ay usoo jawaaba laga yaabaa qaarna ay usoo jawaabi waayo. marka haddaan kuu soo jawaabi waayo ii yara dulqaado intaan kuu soo jawaabayo. mar walba waxaan isku dayaa inaan caawiyo oo wixii aan caawin karo. sidoo kale haddaa tahay iPhone user saan soo sheegay oo ku caawinaya hadii laftirkaaga qayb Telegram-ka igala soo xidhiidh ama commentiga kusoo qora haddii aan leedmo. haddii commentigiinu dad badan arkay inay interest garanay muuqaal gaar ah kasoo diyaarinaya. muuqaalintaas ku saafeeraya haddaa ka heshay muuqaalka fadlan like dhe adoo ku dhufanay sulka xaggoose ee la kor jeeda si muuqaalka asxaab badan si gaar ah looga faa'iideysan karo. sidoo kale channelka subscribe ku dhufanay bananka asxaabta ee la gambalka furanaysa waa timar oo muskaan muuqaal soo geliyo. inta muuqaalka xigay kulmi doono. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.